qaar ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa kulan ay soo qabanqaabisay mu'assasul karam ay isugu yimaadeen habeenkii xalay ahaa magaalada Burco waxay si adag uga hadleen xeerka bangiyada ee horyaala baarlamaanka Soomaaliland waxa ugu horeyn halka ka akhriyay bayaan ay soo saareen culimadaasi Sheekh Mustafa Aadan qodobka koowaad ugu horeyn waxaanu cadeynaynaa in qodobka dhexyaala baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadan ansixinta ama in la ansixiyo bunuugta ama bankiyaasha ku shaqeeya qaabka rabiwiga ah arrinkaasi waxaanu cadeynaynaa inuu si dhammaystiran u khilaafsan yahay shariicada diinta islaamka laba waxa kale oo aanu cadeynaynaa in qodobkaasi si dhammaystiran uu u khilaafsan yahay dastuurka u yaala jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku binaysan shariicada diinta islaamka qodobka saddexaad waxaanu taageeraynaa culimadii ka tala bixisay ka hor intii aan qodobkan la soo dhexdhigin golaha baarlamaanka ee ku soo saaray fatwada qodobkaasi inaanu ku banaanayn shariicada islaamka afar waxaanu haddana mar labaad taageeraynaa oo aanu adkaynaynaa bayaankii ay ka soo saareen culimada gobolka Maroodijeex ee ku aadanaa qodobkaas in uu khilaafsan yahay diinta islaamka iyo dhammaan baaqyada kale ee ay soo jeediyeen culimada ku dhaqan gobolada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland shan waxaan u soo jeedinaynaa golaha baarlamaanka inay meel qura uga soo wada jeestaan is-hortaaga qodobka isaga ah lix waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaamiyaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud in ay ka qaataan qodobka waajibka ka saaran maadaama ay iyagu mas'uul ka yihiin in loo ilaaliyo ummadda diinteeda iyo dunyadeeda iyo mustaqbalkeeda iyo jiritaankeedaba waxa kale oo halkaas ka hadlay Dr. Faisal Maxamed Cali Dr. Xasan Cali Warsame Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad iyagoo dhamaantoodba ayday xeerka horyaala baarlamaanka Soomaaliland dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland maadadiisa shanaad faqradiisa labaad waxay si toos ah u qeexaysaa qodob kasta ama sharci kasta oo ka hor yimaada sharciga islaamka inuu baatil yahay oo aanu banaanayn waxa weeyaan lana celinayo la cadeeyo la shaygaasi ma riba mise riba ma aha lama weydiinayo dad caam ah teetalkay doonaan bahasitaan waxa ka warbixinayo garan karaya oo oran karaya waxaasi waa riba ama ma aha ribo waa culimada iyo ahlul cilmiga iyo ahlul dhikriga ahlu dhikrigeena iyagoo aan kala tagsanayn ay isku waafaqsan yihiin xeerka waxyaabaha ku jira inay riba maqtaca tahay sida daraadeed dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu qeexayaa xeerkaas inaan laba soo dhigin oo loona codaynba waxyaabaha dadka qaarkood ay yiraahdaan magacaanu ka bedelaynaayo waxaan u bixinaynaa faa'iido iyo wax lamida ama khidmad waxba ka bedeli maayo xukunkii sharciga khamriga hadii biyo loo bixiyo oo magaciisa biyo la yiraahdo ama sharaab loo bixiyo de waxba ka bedeli maayo xukunka waxaan u soo jeedinaynaa xubnaha baarlamaanka ee la doortay ee ummadda u maqani in ay wixii ummadda anfacayaan u codeeyaan wixii ay aakhiro ku badbaadayaan ay u codeeyaan waa shay ilaahay uu ogeysiis ku bixiyay cidii ku dhaqanta inuu ilaahay la dagaalamayo subhanahu wa ta'ala oo ilaahay subhanahu wa ta'ala meel adag u dhigay waa shay nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam todobada halaaga ee dadka halaaga inay kamid tahay ijtanibu sab'a al-mubiqat nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam buu kamid yahay marka mawduuca noocaas sida loo adkeeyay horta waxa bay ahayd bamuran iyo dood inaan la galin إلهي وحي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تذكر قونتا إلى علماء حويدية هذا إذا ندوك قرانين تاسوا واجب مسألة دي عامة معها مسألة دي الرأي معها مسألة دي محي كلها معها مسألة دي ميرها لو باربار شري معها قفك مؤمن كأمرك لذا وحس وحاران إنه وحكر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هدي قفك مؤمن بسلك على هذا وحسوا حاران إنه وحكر باربارا معها xeerkani hor yaalla baarlamaanka Somaliland ayay muddooyinkii ugu dambeysay si weyn u hadal hayeen culimada waaweyn ee Somaliland iyagoo ku tilmaamay inuu baalmarsan yahay shariicada Islaamka. Mahad Ali Goodir, TV-ga caalamiga Star, magaalada Burco.